kulanti wacan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta oo aad joogtaan xilli kasta oo idin tahay ku soo dhawaada channelkayga Bashiir Dhaqane. Magacaygu waa Bashiir Cabduqaadir Dhaqane. Maanta waxaan ka hadlaynaa sheekada iyo qisada Osaama bin Laden. waxa uu ku dhashay magaalada Riyadh sanadii 1957. waxa iska dhalay hooyo Siiriyaan iyo aabbo Yemeni ah oo hantiila ah kaas oo aasaasay shirkadda dhismaha ee bin Laden, xiriirna la lahaa qoyska Sacuudiga xukuma. dabaqad sare oo nolosha ah ayuuna ku barbaaray Osaama. waxa uu ku jiray heerkiisa jaamacadda kahor inta uusan ku biirin ururka mujaahidiin ee dagaal kula jiray midoogii Suufiyeed ee gudaha wadanka Afghanistan sanadii 1979. xilligaas wadamada Carabta iyo Galbeedka taageero ballaaran ayay siinayeen ururkaas la dagaalama Suufiyeedka. sanadii 1988 ayuu aasaasay ururka Al-Qaacida. 4 sano kadib sanadii 1992 ayaa laga eriyay dalkiisa Sacuudiga. 2 sano kadib Sacuudiga waxa uu kala laabtay dhalashadiisa, markaas ayuu noqday qof bilaa dal ah. xilligaas waxa uu xarun ka dhigtay wadanka Suudaan, balse sanadii 1996 ayuu ka baxay Suudaan kadib cadaadis badan oo Mareykanka kala kulmay. kadib samaysashadiisii saldhiggiisii cusub ee Afghanistan waxa uu ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Mareykanka. waxay kooxdiisa geysatay weeraro badan iyo qaraxyo ay la beegsadeen xarumaha Mareykanka. kadib weeraradii safaaradaha Mareykanka ee Dar es Salaam iyo Nairobi ay ku dhinteen dad 250 kor u dhaafaya. sanadii 1998 FBI-du waxay ku dartay liistiga 10 qof ee loogu raadis badan yahay dunida, waxayna u aqoonsatay argagixiyaha loogu raadis badan yahay caalamka. weeraradii 9 iyo 11 ee sanadii 2001 ayuu mas'uuliyadiisu sheegtay, kaas oo ay ku nafwaayeen 3,000 oo qof dad ku dhow. weerarkaas oo sabab u ahaa dagaalkii ka dhanka ahaa ee argagixisada ee Mareykanku xilligaa ku dhawaaqay, kaas oo galaaftay nolosha malaayiin ruux oo maanta ah. FBI-du waxay duldhigtay lacag dhan 25 milyan oo dollar madaxiisa. Osaama bin Laden waxa uu hormuud u ahaa aasaasayna urur fikirkiisu gaaray dunida oo dhan oo noloshoodu galaaftay dad aad u fara badan. ururkaasi waxa uu dhalay boqolaal urur oo dalal muslimiin ku badan yihiin maanta dhibaato badan ku haya. qoys hodan ah oo ilaa maanta hanti badan ku leh Sacuudiga ayuu ka dhashay. waxa uu dhaxal u helay lacag 30 milyan oo dollar dhaafaysa. ma jirin cadaadis dad ahaaneed oo uu la kulmay oo ku kalifay fikirkaasi xaq jirka ah, balse waxaa la sheegaa inuu mar walba daneyn jiray Quraanka iyo jihaadka. marka laga soo tago arrimaha diinta, Osaama waxa uu jeclaa akhrinta buugaagta iyo daawashada ciyaaraha. waliba waxaa la xusaa inuu taageero buuxa u ahaa kooxda London ka dhisan ee Arsenal. May 2011 ayaa lagu dilay gudaha wadanka Pakistan kadib howlgal Mareykanka uu ku qaaday gurigiisa. Osaama waxa uu ka tagay caruur 20 kor u dhaafaysa, waxaana la xusaa inuu guursaday ilaa 5 xaas. intaas ayaanu ku soo koobayaa qisada noloshii taariikheed ee Osaama bin Laden. halkan waa Bashiir Dhaqane channel. asxaabta ku cusub channelkeena waxaan idin leenahay soo dhawaada. haddii ay tahay markii kugu horeysay halkan aad soo booqatay, please channelka rukumo oo subscribe noo samee. haddii aad ka mid tahay kuwa hore u joogay waa ku mahadsan tahay sida quruxda badan ee aan muuqaalada halkan aan soo dhigno aad u daawataan.